Hello YouTube وبرنامجكيني كررسو يعني مختار حاجية وآلا بقى برتي برنامج كأنه إذا صار ما أنتنا برنامج وحن كو إيجينا إن شاء الله تعالى قاب كلوه هلي كرو لبا أي بي أدريس كاستعمال اسمها أنا متكلا إساو كو هلي كرتو هذا بقى سيدي كو سعون إسا سيدي سلويلي كرا هذا بقى واحد يكبر وواحد يكتسو مركو ورسو أنا هسه توب برنامج كان اللي هذا هوت سبوت شيت كاسو كو سالينا أي بي أدريسيسو أسو فري وحاك سو داونلود جريسن كرتا جوجل markaa soo download garaysato hotspot sheets free download desktop ayaa ku arkaysa desktopka markuu soo saaro qaybta hoosena sidoo kale uu ku soo badhigayaa soo guduud markaas guduudku yahayna waa disconnect macnaha connect maaha waa macnaha okay si aan wax uga barana marka IP address ka hore ee isticmaalaynay waa ina ogaan intaana kan aan u guda gelin okay IP address ka anaga isticmaalno qof kasto meel kasto aad joogto IP address ka isa ku ogaato markuu ugu horeyso waxa u baahan tahay in halkaas geliso search link waxa gelinaysaa what is my IP address markaa geliso wuxuu ku soo bandhigi doonaa meel kasto aad joogtid adduunka IP address ka isticmaalaysid هذا IP address ka isticmaalay waa kana oo aniga IP address waa iska badan marka tusaale ahaan weeye IP address waa kaasa copy aan soo dhahay paste igu dheh okay maxaa halkaas kan IP address ka markaas isticmaalay computer ka markaas IP address kiisa isticmaalayo okay kan kala xagu ka imanaya marka see ku heli karna marka soo download garaysato hotspot sheets qaybta hoose imaanaysa right click si connect on day okay page as free page ka markuu isfuro waa sugeynaa inta page kaas uu ka furmay sa arkaysan hotspot sheets wuxuu bilaabay VPN ka inuu process ka u saxo waa sugeynaa serverka ilaa inta uu noogu xirayo ama uu naga siinayo IP address cusub waxayna qaadanaysaa daqiiqad insha Allah ta'ala marka hoose arkaysaan waa cagaarka yahay waxa weeye waxa ayuu wada uu kugu xirayaa connect ayuu kugu xirayaa macnaha markuu offline yahayna waa guduud markuu cagaar noqdana waa connect marka intuu cagaar ka noqonayaan sugeynaa markaasna waxay la macno tahay ama uu noo xaqiijiyay inuu na siiyay IP address cusub markaas ayaan IP-geena soo saari doonaa numberkiisa insha Allah okay waa arkaysaa cagaar ayuu noqday waxayna la macno tahay IP address cusub na siiyay intan waxaan ku arkaysaa connected okay hoos soo dhig ama qaybtii hore meeshii hore aad kii hore maadaama kan uu yahay si isagoo ah refresh ku sameey waxaana insha Allah uu siin doonaa kii cusbay waan sugeynaa oo soo wadaa waa kana marka IPO na siina waa kan soo copy yay not bad kimaw paste ku dheh okay kii hore waa kaasa aan isticmaalaynay kanna waxaana siiyay hotspot sheets programkaas hadda idin sheegay ayaa na siiyay okay sababta ama baahida loo isticmaalayo maxay tahay IP address ka mid ahaan isticmaasho qof walba wuxuu leeyahay doq qof walba si wax u fakara dad baa waxay u fakaraan IP address kooda inaan la ogaanin IP address kaada hadii la ogaado macnaheedu waxa waaye in la helay information ka wadanka joogto kamid isticmaalayso meeshii uu ku diiwaan gashan yahay maab ahaan meesha markaas yani uu ku yaalo كمبنيgaas iyo qofka meesha uu ka isticmaalayo magaalahan marka dadka marka waxay isticmaalaan inta badan tooda ay iska isticmaalaan oo kala ma jecla mana oga
marka dadka fakarka badan ee meelal dheer wax ka fiiriya ee private wuxuuda u yihiin waxay isticmaalaan inta badan hotspot shield kaasoo active mar walba uu yahay connected uu yahay mar walba internet ka isticmaalayaan email kastoo ay dirayaan email kastoo wax u dirayaan macnaheedu waxa waaye inaan la heli karin informationkooda ama IP addresska ay isticmaalayaan marka waxa weeye taasna waxay macnaheedu tahay in qof walba uu ku saxan yahay inuu is ilaaliyo informationkiisana inuu xigsado ay aad u wanaagsan tahay maadaama informationka qofka haddii la helo wax badan iska dhici karaan maadaama internetka waayahan dambe ay iska dhib badan yahay qaladaad badanna uu iska jiro marka waxaan filayaa saaxiib yaal inaad wax faa'iidaysateen kulley wixii faahfaahinaa kororso.com macluumaadkii faahfaahsan ugu tegi doontaan gordhow wax intaas kasii dheer caawimaadana hadduu ilaahay idmo kulley email ama comments ku reeb waxaan jeclahay inaan idinka caawiyo insha allah وأنا مختار حاجة ودنا دي مع سلامة ما له ونكسر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.